السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantii way salaam akhyaarta qiimaha sharafta leh ku soo dhawaada muuqaalka la xiiso badan muuqaalkan waxa weeye muuqaalkani labaad ee kaga hadlanay application loo yaqaan Google Drive application oo aanu ka soo hadlay muuqaalka koobaad iyo sidii loo soo degayay iyo yacni facekiisa ugu horeeyay wuxuu ka kooban yahay application-ku waxaanu ka soo hadalnay qaybta koobaad qaybta labaad waxaan kaga hadlanaa sida application-ka Google Drive waxna loo geliyo waxna looga delete gareeyo sida wax loogu soo upload gareeyo document haato ama video haato ama sawir haato sidoo kale sida yani wixii aad soo gelisay aad uga saari kartid labada qodob ayaan ka hadli doonaa ku soo dhaw muuqaalka dhameystiran haday tahay markii koowaad channel-kayga soo baqday fadlan subscribe saar sidoo kale like saar muuqaalka si uu gaadho asxaab badan Google Drive ka soo furansa kadib sida markuu soo furmo Facebook soo soo furmo waxa tagaysa calaamadan plus-ka weega taabanaysa calaamada plus-ka weega marka taabatid waxa soo furmaya qaybtan ayaa soo furmaya qaybtan waxa ka kooban tahay 6 icon ay ka kooban tahay qaybta folder iyo upload iyo scan iyo Google Documents iyo Google Sheets iyo Google Slides marka saddexdan hoose waxay ku tacalluqaan waa Microsoft Office-ki waxyaabii ku saabsanaa weey hadaa doonaysid Google Drive inaad wax soo upload geliso waxa taabanaysa halka ku qorantay upload halka marka taabatid wuxuu geenayaa mobilkaaga waxyaabo ku jira kadib waxa doonaysid ayaa soo gelinaysa hadii waxa soo gelinayaa loogadaydan ayuu kala soo gelinayaa marka halkan ay soo gelisaa ku soo upload garaysaa kadib waxaan ku tusayaa loogadan marka soo geliyo yani halkaas ku soo save garayso qaanad cusub ay samaysanaysaa marka halkan ay soo gelisaa kadib marka halkan ay soo gasho oo upload ku dhamaado ay isku soo save garayso waxaan sameynayaa waan ka saarayaa yani waan delete garanayaa muhiimada waxa weeye inaad ogaatid sida wax loogu kaydsanayo waayo Google Drive waxa weeye meel wax lagu kaydsado oo yani wax ka kooban tahay ilaa 15 GB weeye yani marka wax ku qaadi kartaa wax far badan marka muhiimada waxa weeye waxyaabo aad ku kaysatay qarayad nici kartaa oo baahidiisa ay ka bixi kartaa marka saas delete garan lahayd sidaan kaga buuxin storage-ka marka Google Drive labada qodob ayaan doonayaa hadda ka hadlo qodob waqti sida loo soo upload gareeyo oo hadda waa socdaa uu soo galaya kadib markuu soo galo oo yani halkan uu soo galo waxaan sameynayaa waan garanayaa taas ayaan ku tusayaa delete waa laba qaybood hadii yani Google Drive hadda uu inoo soo galay waxaan ku soo upload gareeyay loogada waatan kadib loogada ayaan taabanaysaa saddex dhibcood xagga ka xiga kadib waxa ay soo baxaya waraaqdan ayay soo baxaya ama waraaqdan ay soo furmaysa kadib waa wadaya macluumaad fara badan horta ayaa waraaqda ku yaala balse waxaan tagayaa halka ku qoran tahay remove calaamada delete kuna ku qoran tahay remove yani icons-ka delete-ka ay ku qoran tahay remove marka taabto kadib wuxuu orayaa move to trash markuu dhaho waa taabanaya move marka saas uu tagaya move to trash waxa weeye meel kamid ah isaga ayuu u move garanaya ama u raraya marka hadda doonaysid inaad ka soo wada saartid hadii aan tago trashka meesha la sheegayo trashka ku sheegayo waan ugu tagayaa loogada halka aan ka dhigay marka trashka hadda doonaysid ilaa trashka ka saartid yani gabi ahaan baad ka saartid mobilka ama Google Drive-ka aad ka wada saartid waxa tagaysaa saddex xariiqood chief-ka xagan kadib waxa ku soo baxaya halkan recent iyo office iyo offline malayahay iyo trash marka trashku waa kan waxaan ugu tagaynaa wixii aan dhigi kareynay marka halkan markaad ugu tagtid saddexdo kala dhibcood kala taabanaysa kadib waxa ku soo baxaysa restore yani waa dib halkiisii ugu celi sidoo kale halkan waxa soo baxaysa delete forever dhamaan aad ka delete garaysid marka delete forever aad taabto hadda gabi ahaanba Google Drive-ka uu ka baxaya sidaana waa lagu waayay muuqaalka intaas nagu tala galay application korta aad iyo aad u fara badan yahay effective fara badan uu leeyahay sidoo kale folders fara badan uu ka kooban yahay marka waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala muuqaalkana soo socda ayaan ku dhameystirnaa anagoo inta muhiimada ka raacayna fadlan muuqaalka like